Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay barnaamijka fariinta dastuurka iyo adeegga xog iyo xidhiidh ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka ee Somaliland waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka ee Somaliland Jamaal Cabdi Muuse oo ka waramay barnaamijkan la daahfurayo ولما حفلة إصرارا وبرنامج فريق الدستور هي مشروع هذا حب يحدد أما وات بورتال أبليكيشن سيستم بروجكت ولما حفلة لما برنامج أو كلا لما حفلة واوين لكن تشيلك خرج كحفلة كوب حي درتيد أنو مطعناي ونقدمنا هالحفلة سلوا إلى اليوم خرج كوب حي حفلة وسردة أن آذن إسماعيل يجمع موسى جامع قدوميها حرونت الدقن كي هرجيسة يا كور رمي فائدة وشعب كولية دستوركو مروا ينامون مياه دستوركو وحريريها وحبكتها وسمركها دولة مدة إلا إسكو هايسا دستوركو وحو موجنيا وحو دفاعه وحو تلماميا حق مواد كلية هي kan lagu leeyahay xaqa madaxdu leedahay iyo tan lagu leeyahay hogaamiyaha maxaa lagu leeyahay kan la hogaaminayo maxaa xilka saaran waa maxay waa wax in la kala haga waa waxa nidaamkan quruxda badan ee aynu ku dhaqanay ee aynu ku noolahay waa waxa inoo hagaajiyo weeyaan ixtiraamkiisa iyo ku dhaqankiisu waa waxa in kala haga waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaraddan warbaahinta wasiirka hadda uu joogaa uu maamulayo oo wado shaqadii qiimaha badleen ee labadii sano saddexdii sano la qabtay in meel kasta uu dastuurku gaadhay oo waraaqahan laynoo daabacayay gacanteena ku haynaa guryaheena ku noqonayaan maaha oo kaliya intan xafladaha aynu ku arkayne goobaha jaamacadaha goobaha ardayda goobaha waxbarashada hoose goobaha bulshada maxalliga ah ay ku qabato isugu shirto inuu gaadhay waa wax aad iyo aad u qiimo badan agaasimaha TV-ga qaranka agaasimi ku-xigeenka idaacadaha ayaa iyagana dhankooda ka waramay doorka ay ka qaateen ka wasaaradaha waan xustaa waan jecelahay waan ku fahmaa weliba waan ku dhaataa waayo xaqaygii baa ku yaalla oo xuquuqdii ubadkayga ku yaalla oo xuquuqdii dadku ugu lahaaba ku yaallay waajibaadkaygiiba marka inaan ku kalsoonaado wey arrintan dastuurka barashadeeda ee barnaamijyada uu ka baahinay idaacadda iyo TV-gaba waxaa sababteeda lahaa wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha agaasimaha barnaamijka shaqo qaran gudoomiyaha maalmo wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo iyagana dhankaasi ka hadlay dastuurkan waa dastuurka marka la qiimeeyo dastuurada ugu wanaagsan kuwa dunyada wuxuu koobayaa dhaqankeena waxa uu sala shariicada waxa ku salaysan yahay suuqa xorta dhinaca dhaqaalaha markay noqoto waxaan filayaa xeerka ka dhashay dastuurka oo xeerkan komishanka maalwanaag golaado xeer number 3 iyo xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa oo xeer number 30 labadooda ay xeerka ka dhashay dastuurka wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska ee Somaliland Hinda Xirsi Jaamac Gaani iyo wasiirka beeraha ee Somaliland Axmed Muumin Saad ayaa iyagana soo dhaweeyay barnaamijkani marka wasaaradda runtii aad baan ugu mahad celinayaa waxaan qirayaa inay gaarsiiyeen meel aanay weligeed gaadhin ummadda reer Somaliland goob kasta oo ay joogaan qofka aan xitaa wada aqoonin wax buu ka yaqaanaa oo qoranaynaa waxaan u malaynayaa waxa dastuurku ma ogola ama waxa dastuurka sheegay wasaaraddu saddexdaas sano ay jirtay tallaabooyin horumarka ay qaaday oo intuu ugu horeeyo in la baro dastuurka shacabka reer Somaliland waajib runtii ugu yahay kuwa iyo kuwiiba inay barano dastuurka qaranka marka kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka ee Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo ka waramay maraaxilkii uu soo maray barnaamijkani mudane madaxweyne ku-xigeen si loo hormariyo wax kasta oo la tijaabiyo waxa noo soo baxday qodob waliba 130 qodob hal daqiiqo ayuu markii hore soconayay mana suurtagal ahayn in qodob walba qodobada xeerarka ka farcama
waqti loo helo waxaa noo suurto gashay mudane madaxweyne ku-xigeen iyo mudanayaal in garyaqaanadii waxa weeyaan somalilan imtixaanka aynu ka qaadnay ugu qaalisanaa oo khadar iminka halkan uu ka fadhiyo iyo maxamed siciid iyo intii kale la shaqaynaysay qodobkiiba 15 daqiiqo maanta daahfurkan aynu furay la daawan doono oo laga dhergi doono qodobka iyo wixii ka farcamaba kaasoo si toosa uga bixi doona TV-ga qaranka iyo idaacadda raadiyo Hargeysa xog iyo xidhiidh runtii waa program aad iyo aad wax yar baa laynaga tusay dhowr qaybood buu kala baxaa mudane madaxweyne ku-xigeen sidaynu ognahay xeerarka aynu leenahay waxa weeyaan waxay kala baxaan dhowr qaybood xeerar waxa weey ansaxay oo madaxweynuhu saxeexay oo garyaqaanku faafiyey oo dhaqan galay iyo xeerar fara badan oo processyo kala duwan ku jira sidaynu u kala ogaano waxaynu u samaynay mareeg lagu xafido oo waxa weeyaan lagu kaydiyo oo mid walba gareedka iyo heerka uu joogo aynu halkiisa kula socono oo markaa kii u baahan inuu priority leeyahay bulshadu maanta u baahan tahay farta lagu fiiqi karo oo aynu odhan karno xeerkaasi waxa weeyaan maanta loo baahan yahay inuu dhaqan galo waxaanu kaloo helaynaa in xeerarka qabyada ah ama maxaa dhahay qabyatirka u baahan iyagana si aynu inuu samayno gabagabadiina waxaa halkaasi hadalka soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Somaliland dastuurku runtii waxa weeyaan waa ilaaliyaha qaranka waa waxa ummaddu kala socotay ku heshiisay waa daryeelaha qaranka waa ka wax daryeelaya ee habeynaya hagaya nolosha bulshada reer Somaliland waxaan leeyahay fariinta wanaaggiisa wanaagsanaa waxaan halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xubnihii ka qayb qaatay hirgelinta barnaamijkani Idruus Maxamed Caynaan Goobjoog magaalada Hargeysa.